السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وناكسن صاحبيال waxaa joognaa mid ka mid ah iskuulsida magaalada Muqdisho waxaan rabaa maanta inaan kaga hadalno horumarada ay sameynayso magaalada Muqdisho iyo dhismooyinka cusub ee ku soo kordhay annagoo tagi doona goobaha ugu quruxda badan ee dhismooyinka wadooyinka la dhisay ayaan maaragtay istaagi doona oo booqan doona oo fiirin doona nala socdo. sidoo kale waxaa la taaganahay mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo maaragtay la socda horumarka magaalada Muqdisho iyo horumarada ay sameynayso soo dhow marka kalena magacaaga loo bilaabo. Assalaamu calaykum magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Xasan Fulaaye ama qadarka magac dheer haddaan kaga hadlo isheeg magaalada Muqdisho xaaladdeeda horta waa say oo mataqaanaa way soo jeedaa waa sabcan soo baxday xaaladdeeda waa okay dadka mataqaanaa hadda meel walba iyo horumarka la gaaray iyo adduunka si horumarsan yahay waddanka mid ugu fiican hadda yahay wax walba waa kala socda ganacsiga kala socda xaaladda waa fiican tahay alxamdulillah wax naga maqan ma laha marka xaaladda waa fiican tahay xaaladdu waa fiican tahay hadda wadada aan taaganahay waa dhisan tahay inkastoo wadadu ay yarta waxaa rajeynaysaa wadooyinka kale oo waxaan si fiican uga ka rajeynayaa dowladda Soomaaliya inay hadda si loo dhisay horumarka hadda aan la gaaray oo aan gaarnay inay sii kordhiso sii weynayso hadda oo jeeda wadooyinka si u dhisan yihiin meel walba dhismaha ka socdo meel walba gaaray waxa walba ka taagan meel walba horumarka waa meesha laga fiicna wuxuu marayaa meeshii ku fiicnaad ugu fiicnaad marka waxaan sii rajeynaynaa intaas in ka badan hadii la hayno xaaladda intaas sii rajeynaynaa hadii la hayno Ramadan Kareem ayaan ku leeyahay aad ayaad u mahadsantahay waayahay ugu quruxda badan ee Muqdisho ayaan taaganahay waxaan ka wareysanay horumarada ay sameynayso Muqdisho iyo sida ay dadka maaragtay ugu faa'iideysan karaan horumarka ayna ugu qayb qaadan karaan dhismaha wadooyinka iyo guud ahaan bilicda Say,